Maamulaha Chelsea Thomas Tuchel ayaa si xun u weeraray garsoore Anthony Taylor iyo VAR-ka go'aanadii ay gaareen kulankii ay barbaraha 2-2 la galeen Tottenham Premier League Axaddii, isagoo sheegay in kooxdiisa ay u qalantay inay badiso. Harry Kane ayaa gool madax ah u dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay waxay Tottenham ku heshay barbaro waxayna ku dhamaatay 2-2 oo ay Tuchel iyo tababaraha Spurs Antonio Conte labaduba kaarka cas qaateen. Tuchel ayaa sheegay in uu dareemay in Kai Havertz lagu galay foul isku diyaarinta goolkii barbaraha ee Tottenham iyo in Richarlison uu offside ku jiray uuna ka hor istaagay aragtida goolhaye Edouard Mendy. Waxa uu intaa ku daray in saxiixa cusub ee Marco Correa daafaca dhexe ee Tottenham Christian Romero uu timaha ka jiiday wax yar ka hor inta uusan dhalin goolka xamaasadda lahaa ee Kane. Jiid timaha qof kale ku jir garoonka oo weerar koonaha ugu dambeeya. Tani aniga waxay ii tahay sharaxaad la'aan, mana doonayo inaan aqbalo, Tuchel ayaa u sheegay suxufiyiinta. Labadeena gool si cadaalad ah ayaan u dhalinay waana natiijo cadaalad ah sababtoo ah waxaan ahayn kuwa cajiib ah, waxaan u qalanay inaan badino. Tani waa aragtidayda. Codsi online ah oo ku baaqaya in garsoore Taylor aan garsoore looga dhigin ciyaaraha Chelsea ayaa lagu daabacay website-ka change.org wax yar kadib isku aadka waxaana uu helay in ka badan 64,000 oo saxiix. Mar wax laga weydiiyay aragtida taageerayaasha Chelsea ee ah inaan Taylor loo ogolaanin inuu dhexdhexaadiyo ciyaaraha kooxda mustaqbalka, Tuchel wuxuu yiri malaha way fiicnaan lahayd, laakiin si daacad ah waxaan haysanaa VAR oo gacan ka geysan kara qaadashada go'aanka saxa ah. Tuchel oo laga yaabo inuu wajaho ganaax dhaleeceyntiisa garsooraha ayaa hadalkiisa raaciyay haddii uusan arkin ma eedeynayo, laakiin waxaa jooga dad VAR-ka hubiya, markaas waad aragtaa oo sidee tani u noqon kartaa laad xor ah iyo kaarka cas. Tani xitaa xiriirku ma laha garsooraha kiiskan. Waan ku faraxsanahay inaan fasaxo ciyaarta, laakiin u cadaalad samee dhinac walba fadlan oo sidaan oo kale maaha. Mar la weydiiyay sida uu u arko ka maqnaanshiyihiisa kulanka soo socda horyaalka ee Chelsea iyo Leeds United August 21-keeda, Tuchel wuxuu yiri waa hagaag, anigu kooxda waan ka maqnaanayaa. Erik ten Hag ayaa kansalay maalin fasax ah oo loo qorsheeyay inay ku maqnaato kooxdiisa Manchester United, waxaana uu sameeyay tababar dheeri ah kadib markii ay ceeb kala kulmeen kooxda Brentford. Red Devils ayaa guuldaro 2-1 ah ka soo gaartay Brighton toddobaadkii hore ee xilli ciyaareedka cusub, iyadoo guuldaro ka sii daran kala kulantay Brentford laguna garaacay 4 gool iyadoo aan wax gool ahna aysan dhalin. Bees ayaa 4-0 ku hogaaminaysay 35 daqiiqo ee ugu horeeyay waxayna u soo baxday guul. Intaas kadib Ten Hag ayaana wax waqti ah iska luminin bilowgii baaritaankiisa natiijada naxdinta leh. Tababaraha reer Holland ayaa markii hore damacsanaa inuu ciyaartooydiisa fasaxo inta ka harsan isbuucan kadib kulankii Brentford, iyadoo kulan adag ay ku wajihi doonto kooxda ay xifaaltamaan ee Liverpool 22 August. Si kastaba ha ahaatee, dabeecadda guuldaradii ugu dambeysay ayaa ku kaliftay ninka reer Holland inuu bedelo qorshihiisa, waxaana uu ugu yeeray kooxda tababar dheeri ah. Axaddii, Ten Hag ayaa goor hore yimid Carrington si uu uga fiirsado dhacdooyinkii ka dhacay GTEC Community Stadium, wuxuuna hadda isku dayi doonaa inuu hubiyo in United ay dib u soo laabato kana fogaato inaysan la kulmin dhibaatadii dhacday oo kale. Erik ten Hag ayaa doonaya in ciyaartoyda Manchester United ay ku ordaan masaafo dhan 23.8 kilomitir ama 8.5 mayl inta lagu guda jiro jimicsigooda tababarka dheeriga ah ee maanta. Ciyaartoyda Brentford ayaa shalay orday 23.8 kilomitir in ka badan Man United. Masaafada la orday shalay ayaa ahayd Brentford 109.4 kilomitir halka Unitedna ay orday 95.6 kilomitir. United ayaa haatan ku jirta kaalinta ugu hooseysa horyaalka Premier League markii ugu horeysay muddo 30 sano ah. Ten Hag ayaana wax cudurdaar ah u sameeyeen qaab ciyaareedkiisii kadib seerigii ugu dambeeyay. Waa qashin waana wax xun, waxaan u baahanahay heerar ka sareeysan, taasi waa caddahay. 52 jirka ayaa u sheegay beIN Sports ciyaarta kadib 35 daqiiqo waxaa laga dhaliyay 4 gool. Suurtagal maaha, kooxdu waa inay mas'uuliyadeeda qaadaa. Aad ayaan uga xumahay taageerayaal, hoos ayaan idin dhignay. Waa inaad qaadataa mas'uuliyadda gudaha garoonka koox ahaan iyo shakhsi ahaanba. Taasi waa waxa aan sameynay. Waxa aan ka codsaday inay sameeyaan waa inay ku ciyaaraan aaminaad iyo inay ku ciyaaraan mas'uuliyadda qaab ciyaareedkooda. Taasi waa waxa aanan sameynin.